بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرنتي إلهي سبحانه وتعالى بينما هدعلنا مركز لبعض تليها إيجا وقرب كيجا مديك تاجن قوتدي هكذا دي كمقطع وقوتدي فردها الحمد لله رب العالمين عاو حنوه يني ماشي ساك كده قالمي فردسما وهايين أيانا عاو أنا قفرين نوعه وتشيدي هرا نوعه وأنا كده قالمينا الحمد لله رب العالمين وحنا بقى هل كان إنان السنم إيو عيالك ay soo khaldeen aan fariin uga diro aniga si wacan baad ii garanaysaan waxaan ahay nin la sacaan wax ku bartay ku dhashay kuna barbaaray intaan ku soo leekaaday nimanka halkan taaganna waa dhalinyartii ka dhiidiyay dulmiga ee wax baranaysa iskoolada sare ku jiray haday cid argagixisa tahay argagixisa ku tilmaamaysaan idinka argagixisa waxa idin leeynaya hadda iska kiin cilinaya idinkoo dawladana waa ciyaalka ardayda ah ee wax baratay bas keenay xaqana noo hilinaya waxaan noo hilinaya xaq iyo ciidan noo hilinaysa waxaan leenahay ninka maanta maqan ee dhubaantaha meel kale ku maqan ka hanqal taagayo la sacaanado maanta ku baahan qurba joogta waxaan leeyahay kaalintiina way maqan tahay qof walba ama haday gurmad noqoto haday wax kale noqoto maanta kaalintiina waa loo baahan yahay SNM hadda waxaan ognahay inay meel walba isaga soo horwacdo ilaa booliskoodii kuwii shaqaalaha ee guryaha ilaalinayay xaafadaha ilaalinayay boqolka laanka qaadanayay in la sacaano maanta lagu soo xoreeyo deegaanadooda ay ka soo waxaynayaan waxaan leenahay guushu waa dhowdahay wax yar baa ka hadhay waa maalintii hore xalana way jabeen oo talisadooda ugu weynaa waa daawanayseen caawana wanaga buurta sayidka u hooyanayna oo joogna oo ka qabsanay inta dhimanna birina goocha cadaan noo balana iyo inta kale tukaraq waan ka saarana insha Allah guushu waa dhankayga guul waxa la lahaa saxleer waxaan joogaa difaaci ahaa buurta sayidka ka hooseeyay oo xabaalaha oo nimanka khawaarijta oo SNM aan ka kicinay galabta maqribkii alxamdulillaah rabbil caalamiin ragga iyagu waa shahiideen waxna waa naga dhaawacneen waxna waa naga dhinteen laakiin alxamdulillaah guul baa joogna caawa haddaan difaac ugu jirno oo midadkooda halkan ay yaalaan midkaan ka meelaha qaado midadkooda waa kuwa ilaahay guul baan gaarnay insha Allah waana guuleysanaynaa difaacooda ay galabta ku jireen baa hadda ku sugannahay taliyo bal waxa nooga warbixisa khasaaraha iyaga gaaray ma qiyaasi karaysan inuu khasaaraha iyaga gaaray rag badan ilaa 10 baan hadda goobta hadda ku suganahay yaala midkoodii waxna waa wax dhaawac oo ay la carreen marka aw khasaaro way jira khasaaro badan baa iyaga gaaray oo aad u tiro badan alxamdulillah anaga khasaaraha iyaga ma badnayn 2 iyo 3 waxaan ahayn iga basoo gaaro khasaaro laakiin ragna waa dhaawac ragaasuna ilaahay caafiyo intii ku dhimatayna xaq way ku dhinteen ilaahay ha u naxariisto alxamdulillah rabbil caalamiin bal waxaad warbixin kooban naga siisaa basida duulaanku maanta u socday iyo sida u kiciseen duulaanku waa marka hore culays bay soo saareen dhammaantood intay alaalintay waxay hub iyo gaadiid haystay iyo technical meesha bay soo saareen marka waxa technicadiina dee raggan dhalinyarada oo xaq u dirirka waa hal mar galay caawa maqribkii aan ka saaray difaaca ما شاء الله عاو waxaad u hooyeenaysan taliskoogu baan joognaa difaacogu baan joognaa aroortiina haday caawa kaleeysan marmid baan qabanayna waan malaynaysaa insha Allah hadii Allah salaamaya dadweynaha shacabka heer ICC annagu waxaan ka soo hadlanaa jiidii hore ee maanta lagu dagaalamayay baan joognaa xoriyihii ee xalay deganaayeen baan hadda caawa ka hadlanaa waxa weeyaan nimankaas horta nimankii dawladda sheegan jiray ee maamulka sheegan jiray dhigi jiray dawlad baan nahay maamul baan nahay horta waa fashilmeen caalamkuna waa og yahay ummadda islaamkana waa ogta waxa weeyaan meel ay ka baxaan bay la yihiin wiilasha yar baabuurta saaranna meel allaale meel ka bixin bay la garan la yihiin ma joogeen ilaa iyo hadirtadaas marka annagu xoriyahoodii baan ku sugannahay waxaan ugu baaqayaa oo aan leeyahay sanabay carruurta yar aad meesha ku soo qaladeen kala bax hadii kale waa lagu quraacanayaa insha Allah nimankan SNM ee dawladda soo sheega waxay yiraahdeen dadka la dagaalamaya waa argagixiso iyo ummada jaan waxaan u sheegayaa oo cadeynaya ninaas aan ku dhashay oo ku dhaqmay wax ku bartay inaan ahay oo ay dulmigay wadeen iyo diiday kibirkooda kana dhiidhiyo qoriga ka qaatay lana diriray asagu meeshina ka qabsay waxay yiraahdeen hal saac baan ku qabsanaynaa laasanood waxay badayla hadeertada xataa in harraha ku soo dhawaan waayaan nimanka dhan dawladda soo sheegay intaas oo sano jiray caalamkana doonayay inay gobolgoos ka helaan hal saac baan ku qabanaa bay yiraahdeen ilaa ay haddana dibad wareeg bay Kenya xataa kuma soo dhawaan xiriireed 27 saacadood bay ku qaadatay 27 saacadood bay ku qaadatay hadda 48 saac bay ku sidqasaaba shalay goobaha markay
nimankan farduhu ay ku galeen ay ku janjaameen waxa la haysteen kaga dirteen diimadoodkoodii wali waa yaala bal in dowladda isu sheegay meedkiisa soo doonan waay mi waxba tar buu leeyahay mise waa waxa lagu sheegi karaa haddii argagixisa jirto Soomaaliland argagixisa wiilasha dhalinyarada ah meesha la soo khalday la soo dareena waxaan leeyahay gudihii baan intabay haddii Soomaaliland qarisay meedkiin oo ilaahay hadda xataa isna fiin warka hayno waraabuhu ku cunay meedkiin gudihii intabay jaalan ka soo khalday malay hooyooyinka reer Hargeysa reer Burco ciyaalkiin halkan ninkii yimaada uu dhimanaya hataa dhaawac male madaxa iyo saabley ka wada taal waa niman waxay islayn doonaya dal ay islayn ku dooday taan warkan asmaada ku bartay oo hadeer waliba dugsiga sare ku jiray kana dhiidiyay dhibaatada ay wadaan oo qoriga ka qaatay meesha ay ugu sheegayaan leeyihiin argagixisa jirta argagixisana waa iyaga helmoogay mar iyaga argagixisa xaqan u dagaalameeyay waxaan ku afuufinay madaxan ka dhacay waxay moodeen dad balaaya soo tababartay dadkii asmaada ku bartay joog jiray waan aad ku taqaaneen